السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan intan iga soo jeediyo youtube-ka intaan ku jiray maxaa nolosheeda iska bedelay. Nolosheeda waxaa iska bedelay routiinkeyga isbedelay. Maxaa la dhahaa noloshii wixii aan qaban lahaa maalin kastaba activity-deeda way isbedeshay sidii hore kale dad ma ahan. Maalin kastaba waxaan bartaa wax ku cusub barasho oo waqti kaa qaadanaysa ama madax kaa wareerinaysa maaha. Wax cusub ku saabsan youtube-kaan bartaa. hadda waxaan bartay waxa waaye youtube-ka inaan aniga aan video iska duubo kaligay iyagoon ciyaalka aan dhibeynin ayaga maxaa la dhahaa aniga adidkeygaan samaystaa waxyaalaha ku saabsan youtube-ka dhan anigaan samaysta. marka hore waxay ahayd ciyaalka ay caawin jiray haddeertaan laakiin maalin kastaba sidaan dhahay seesaan loo yeelaa sidee loo qabtaa haddeertaan alxamdulilah wax kastaba anaa hadda samaysta. marka youtube-ka barashadiisa waxaan u arkayay wax oo dadka waaweyn aan samayn karin wax dhalinyarada un lay samayn karaan saas ma aha. laakiin haddii la isku dayo waa la qaban karaa. waxaa waaye adduunka waxaan la isku dayi karin ma laha. hadduu ilaahay kuu fududaynaya waa qaban kartaa. waa gurigaaga iska joogtaa qofaa la sheekeysan adoo qof la sheekeysanaysid oo kaleeto waa camera markaa la sheekeysanaysid. maxaa la dhahaa maalin kastaba fikradaan raba inaan qof soo gaarsiiyo inaan soo gaarsiiyo. marka hore waxaan ku bilaabay youtube marka hore waxaan ku bilaabay raashin. raashinka markaan ku bilaabay raashinkaasito cabaaraan waday dadka way ka heleen 100 qof ilaa 200 qofood aa fiirsan jirtay maalintii. hal xaba bis aa jiro oo maxaa la dhahaa anoo fish karinayo anoo karinayo kalluun karinayo bariis kaasaa mar 2,000 gaari waa isku naxab waxaan dhahay waaw 2,000 qofood maa fiirsata kan cajaa'ib. anigoo sas u yaaban haddana mar kale ciid idoo ahaan biskut kariye ciidii biskutkeeda asigana sidoo kale u daba qabsaday. inta kale waxay ahayd 100 qofood 200 qofood bisaa fiirsan jirtay. subscribe-kana 500 sidaan ku gaaro waa adkeedba. Soomaaliyaan aaday markaa Soomaaliya aaday wili 500 wax yar iga dhineed. marka Soomaaliya waxaan ku niyeystay markaan tago ilaa iyo 500 ku soo buuxsamaysa markaa soo noqonay. runtii way soo buuxsantay 500 subscribers anoo haysta Soomaaliya ka soo laabtay. markaa soo laabto inta imid maxaa la dhahaa sidiyaan maxaa la dhahaa maalin maalmaha kamid ah baa maxaa la dhahaa sheeko yaraan qabtay. sheekadii aan kasoo sheekeeyay sheekadii 800 qofood baaba saacada yar ku fiirsatay 2 saacadood gudaheeda. waxaan dhahay sheeko kale inta ka furmatee sheekadii aan daba galay sheekadii aan daba qabsaday waa socda tasbiixda sheekada sidaan ugu jirnay waa kan haddeertaan meeshaan taaganahay maalinba waxaan idin soo gudbiyaa dadka wayba ka helooyinba alxamdulilah. marka waxa waaye warkaan dhan waxaa ugula jeeda waxa waaye qof dadka rabaan inay youtube furtaan oo laakiin oo isdhahayaan maxrabo male maxaa haysaa soo daynaysaa. hadda waxaan ogaaday youtube-ka waxaa waaye qof kasta u baahan yahay. yacni waxaan waaye meel oo laga samayn karo nolol laga samayn karo xataa haddee lacag ahayn farxadaad ka samaynaysaa dadkaa waxaa kula subsanaysaa wixii aragtada koo gudbinaysaa oo adi muhiim kula ah. maxaa la dhahaa dadkana way ka helayaan qaarkood because waxaa waaye adduunka dadka wada joogo waa loo wada baahan yahay. qof kasta wuxuu qabaa wax oo qofka kale kaga duwan yahay qabaa waxaas yar oo qof kale kala duwan yahay qofkaanaytadne maxaa la dhahaa ka faa'iidaysanaa. marka waxaan dhihi lahaa qofkii raba inuu youtube furto xataa oo ka dhigto daily activity. dad waxaa jiraan maamooyinaa jiraan oo guriga kaligood ku nool qofka kaligiis nool oon shaqo xataa aan tegaynin youtube waxaa waaye shaqadu isku mashquuli lahay waaye baro maxaa la dhahaa faatixada taa qof ka bar tasbiixda qof ka bar nololaa ka soconayso. marka dadaa kaa faa'iidaysanayaan aniga haddeertaan waxaan dareemaa dad badan inay isoo qoraan maxaa la dhahaa waa mahadsan tahay waana dhiirigelisay. marka qofkii raba inuu youtube furto aad ay u sahlan tahay. waa isku mashquulinaysaa youtube-ka haddii especially maxaa la dhahaa meelahan aad joogtid yurub joogtid oo keli aad tahay waxay ku noqonaysaa meel aad ku gudbinaysid wax alaale wixii aad jeceshahay oo ilaahay raali kaaga ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.